السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta taariikhdu waa 20 bisha koowaad 2019 kalfadhiga 43aad fadhigiisa 12aad koranka hadda fadhiya konton iyo shan mudane fasax iyo jiro waa ma jiraan maqnaashuuna waa 11 mudane salaam kadib maanta waxaynu u balansaneen xillihii joogtada ahaa gabagabeyntoodii dhowrka xubnood oo awaldayn gobolladu soo heshiiyaan bay ahayd laakiin dhowrka xubnood oo isku aada aan lagu heshiin insha allah waxaynu ka dhigi doonaa doorasho marka oor waxaan qabnay maanta in hawsha dhaba dhacdo laakiin hadda waxay og tahay wixii habraac baa jira habraacan in loo qaybiyo mudanayaasha kow si ay ula socdaan qaabka ay doorashadu dhacayso guddigiina waan qabanaynaa doorashadaan qaban lahaydna maanta waan qabanaynaa ragguna aan soo diyaargaray waxa laga yaabaa siifiyadooda iyo waxooda aan soo diyaarsanaa siifiyadooda halkay ka akrinayaan habraaca wixii laga rabo oo dhan halkan ay ka akhrisanayaan dabeetana wixii looga baahan yahay markaa way soo diyaargaroobayaan doorashadana arooyadii goor hore baynu ka dhigaynaa haddii alla awoodana karado xilli hore oo 8 meelaha biidni illaahi tacaala inay bilaabato si hawshan inooga aftiranto ay raxraadkeedu inooga baxo marka waxaan codsanaynaa howlwadeennada xogeyaha marka la yidhaahdo xidig soo xogeya in habraaca loo qaybiyo mudanayaasha musharaxiinta liiskooda loo haysaa iyaga keliya oo qaybi dabeetana waxyaabaha laga rabo nin walba si fiican u soo akhriyo hana la socdo sanadda waxba u soo bixin wariyo hadalkooda marka habraaca la siiyo guddidan hadda magacaabayna insha allahu waxaan ka dhigi doonaa guddidan aadu guddi badan ma aha guddida doorashada qabanaysa saddex nin ka dhigana waxa weeye ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan geni carab mudane muuse xasan iyo ninka la yidhaahdo cali axmed saalax cali dhahar saddexdaa nin baa qabanaya insha allahu doorashada marka waxaan rabnaa iyagu inay qoladan insha allahu ay la xidhiidhaan habraaca guddidaa qaybinaysa wixii laga rabo oo kalena musharaxiinta guddida ha u yimaadeen habraacana ha qaateen habraaca wuxuu furayana ha soo buuxiyeen shirkuna waa inoo xidhan yahay insha allah xildhibaanada kalena waa fasaxan yihiin iyagoo mahadsan